kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada warka warbaahinta Banaadir online qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya jiritaanka Soomaaliland waxay ku xiran tahay caaradda qalinka farmaajo waa warbixin warkan aad ku daawan doontaan Cabdirashiid Xidig oo fashiliyay sir aad u culus haddaba saameynta laagay sirtaasi ku yeelan karta doorashada deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ka dhacaysa sanadkan gudihiisa faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya gabar taraawiix ka soo baxday oo xal lagu dilay gudaha magaalada Gaalkacyo waxa ay soo taraya dalka reer Yurub ee aqoonsanaya baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliga tuhun xoogan ayaa ka dhashay eray bixinta Mareykanka ee duqeymaha Soomaaliya uu ka fuliyo dibaddana waxaan idinkaga haynaa doorashada baarlamaanka Yurub oo si habsami loo socota qodobadaasi aad daawan doontaan saaxiibayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 28 bisha May 2019 u diyaar garooba daawashada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan jiritaanka Soomaaliland waxay ku xiran tahay caaradda qalinka farmaajo waa run ee rumaysan jiritaanka Soomaaliland ay ku xiran tahay caaradda qalinka farmaajo waxa kaliya ee looga baahan yahay waa inuu qaato go'aan dhiiran oo uu maamul ugu sameeyo gobolada Sool Sanaag Cayn waxa isweydiin leh sababta madaxweyne farmaajo ugu dhiiran leeyahay inuu qaato go'aan noocaas ah oo ku sugayo midnimada Soomaaliya oo maamul ugu sameeyahay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo dadkoodu aad u taageersan yahay dhexe Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya hadii madaxweyne farmaajo maamul u sameeyo gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn uma baahna inuu waan la galo Soomaaliland waana meesha kaliya ee laga bixin karo Soomaaliland waa hadii uu go'aan qaato madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo hadalkani soo baxaya waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii la soo dhaafay eedayn xoogan loo jeedinayay madaxweyne farmaajo kaas oo ku aadan inuu ka gaabinayo wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland walow haatan ay soo baxay in madaxweyne farmaajo ay jiritaanka Soomaaliland ama midnimadeeda ama in Soomaaliland ba laga taqalusay ku jirto qalinka madaxweyne farmaajo caaradiisa arintan wali waxaanan ka hadlin mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta deegaanada Soomaaliland mana cadda hadalkani waxyaabaha ay ka dhihi doonaan Cabdirashiid Xidig oo fashilay sir aad u culus iyo sirtaani saameynta ay ku yeelan karto doorashada deegaanada ka dhacaysa xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo kamid ah musharaxiin dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sharaxaad dheeraad ah waxa uu ka bixiyay qarax miino laga saaray meel ku dhow hoyga uu ka degan yahay magaalada Kismaayo xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in xogta qarax ay hayeen maalmo ka hor isla markaana ay ka hortageen balse waxa uu mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ku eedeeyay qaraxaasi inay ka dambeeyeen xildhibaanka ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland laga soo abaabulay qorshaha la doonayay in lagu diro asaga waxa uu si gaar ah ugu eedeeyay mas'uuliyiinta ammaanka ee madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland si gaar ah taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada Jubbaland oo lagu magacaabo Yaxbul ayaa waxa uu sheegay in gaari uu ku qaatay miinada taasina ay shaki gelisay waxaana uu sheegay in qorshahaasi uu ahaa shirqool lagu doonayay in Cabdirashiid Xidig loo qaarijiyo waxaa jira walaac badan oo musharaxiinta Jubbaland oo ka qabaan dhanka amniga iyo hanaanka madaxweynaha Jubbaland u qorsheynayo inay u dhacdo xulashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ugu dambeyntii xeraalyaha qaranka Soomaaliya iyo saraakiisha AMISOM ayuu ka dalbaday inay falkaasi ku sameeyaan baaritaan degdeg ah isla markaana ay kiiskaas si dhow wax uga ogaadaan Cabdirashiid Xidig hadalkani ka soo yeeraya waxa uu ku soo aadayaa xilli hoygiisa laga bixiyay miino mid kale ay ku qaraxday walow maamulka Jubbaland laamihiisa ammaanku ay sheegeen in qaraxaasi uu ahaa mid ay ka dambeeyeen xubno ka tirsan al-shabaab hase yeeshee Cabdirashiid Xidig ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi isaga lagu dili rabay ayna ka dambeeyeen saraakiil ka tirsan maamulka dowlad goboleedka Jubbaland faahfaahin dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan gabar xalay lagu dilay gudaha magaalada Gaalkacyo wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in kooxo hubaysan ee magaaladaasi ku dileen gabar ka soo baxday masjid salaadii taraawiixda kadib dilkani ka dhacay dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa loo geystay gabar 22 sano jir aheeday oo la sheegay inay ka soo baxday masjid ku yaala xaafadda Garsoor ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug gabadhan ayaa waxa lagu magacaabi jiray Naciim Cumar Shire Nuux waxaana la sheegay in dilkaasi loo geystay ay ka dambeeyeen weelku hubaysan Tuurayo waxaana dhaawaceeda la geystay ku yaala magaalada Gaalkacyo walow dhaawacaasi uu geeriyootay
maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen inay rajeynayaan dadkii ka dambeeyay dilkaasi inay gacanta ku soo dhigi doonaan magaalada Gaalkacyo. Xalay waxaa laga sameeyay baaritaano kala duwan walow ilaa hadda laamaha ammaanka dowlad goboleedka Puntland aysan soo bandhigin shakhsiyaad si toos ah loogu eedeynayo inay dilkaasi ka dambeeyeen. 24 bishii Febraayo magaalada Gaalkacyo waxaa kufsi dil loo geystay gabar 12 sano jir ah taasi oo lagu magacaabi jiray Caasha Ilyas Aadan iyadoo raggii dilkaasi ka dambeeyay oo saddex ahaa maxkamadda soo taagay maxkamadiina ku xukuntay xukun dilahi. maalmihii la soo dhaafay magaalada Gaalkacyo dhanka Puntland ayaa waxaa amnigeedu ahaa mid faraha ka sii baxaya walow ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland ay wadaan howlgallo amniga magaaladaasi lagu sugayo. dalalka reer Yurub ee aqoonsanaya baasaboorka diblomaasiga ayaa soo taraya. dowladda Holland ayaa waxay aqoonsatay in dalkeeda lagu gelin karo baasaboorka Soomaaliga ee la siiyo shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta Soomaaliya. safiirka Soomaaliya fadhiya midowga Yurub Danjire Cali Siciid Fiqiya waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda Finland ay si rasmi ah u aqoonsatay in dalkeeda lagu gelin karo baasaboorka Soomaaliga gaar ahaan kan shaqaalaha iyo kan diblomaasiyiinta. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idinla wadaago in dowladda Netherlands ay aqoonsatay baasaboorka diblomaasiga iyo kuwa serviceka laga soo bilaabo May 15 2019 baasaboorada la aqoonsan yahay waxaa laga soo bilaabay kuwa la bixiyay 2014 ayuu yiri safiir Fiqi. talaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu jirto sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ee leedahay dalalka caalamka. guud ahaan warkii ka daawanaysay warbaahinta Walbanaadir Online saaxiibayaal wanaagta fadlan subscribe haddii aad ku cusub tahay warbaahinta Walbanaadir Online mahadsanidin saaxiibayaal.